السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي في الله، عاو وحين بررينا مقع كمذا مقعيد إلهي سبحانه وتعالى. مقعين عاو قادن دونه والبصير. البصير مركا الله معنى يوحو نقريا والله مركا إلهي الله أركتديسو أي كسريسو أركتد مخلوقات كأودن، والله أركتديسو أي كسريسو أركتد مخلوقات كأودن. haddaba markaad albasiir dhahayso ogow in ilaahay araggaagu uu ilaahay subxaanahu watacaala araggiisu ka sareeyo. ogow shayga aad arkayso inuu ilaahay la socdo. ogow shayga aad arkayso xumaantiisa iyo wanaagiisa inuu alla la socdo. ogow ilaahay subxaanahu watacaala shay ma jiro aad aragto ilaa ilaahay subxaanahu watacaala wuu la socdaa. xumaan iyo khayr wuxuu yahayba ilaahay wuu la socdaa. ilaahay subxaanahu watacaala haddaad wanaag eegtana wuu la socdo, wuu kaa ajirsiinayaa. haddaad xumaan eegtana ilaahay wuu la socdo, wuu kaa dembisiinayaa ilaahay subxaanahu watacaala. haddaba ilaahay waa basiir, ee adiga waxaad arkaysa u fiirso, oo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa koobay oo aragti ahaan u koobay oona la socday. ogow haddaba ereyga micnihiisa waa intaa. ereyga albasiir qur-aanka wuxuu ku soo arooray 42 jeer buu ku soo arooray, ama 42 jeer buu ku soo arooray. laba meelood baan ka soo qaadanaya. subxaana aladii asraa bicabadihi aayadda aakhirkeeda ilaahay wuxuu ku gabagabeeyuu yidhi wahuwa asamiicu albasiir. waa alla markaa wax maqla wax arka weeye ilaahay subxaanahu watacaala. haddaba albasiir baan u socdaaye ilaahay subxaanahu watacaala halkaa wuxuu ku caddeeyey inuu ilaahay wax kastoo la maqlo ilaahay uu og yahay uuna maqlayo, wax kastoo la arkana ilaahay inuu arkayo uu la socdo oo ilaahay arkaya markaa. haddaba labadaa erey ee asamiic albasiir, samiica uma fadhine ee waxaan qaadanaynaa albasiir. albasiir haddaba waa ilaahay wax arkaya, waxa aad arkaysana ilaahay uu arkaya wuuna la socdaa. ogow haddaba meel kalaan soo qaadanaya aayad kaloo ka mid a suurat alxujuraat aakhirkeeda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. إلهي سبحانه وتعالى ومدك أوج وحير يدلكم مقنبا إلهي وأوج هاي إلهي ومدك مركا أركيه وح الله لو حد سمينيسان. هذا بدأ وح الله لو حد سمينيسان إلهي ولا صعدونا أركيه. هذا إلهي مر هدو أركينا وح سجر لجلينا يا مركا أرك أو إنها جوها إيجان. haddaba ilaahay hadduu maxmaqda ilaahay subxaanahu watacaala arkayo, ilaahay raali geliyo wax allaale wuxuu ilaahay raali ka yahay uuna ku faray. markaa eeg baaraka allahu fiikum. haddaba ereyga albasiir wuxuu sunnaha ku soo arooray 2 jeer. labadaa jeer waxaa ka mida, labadaa jeer waxaan soo qaadanayaa 2 xadiiثoo markaa kala duwan uu nabiga sala allahu calayhi wasalam uu ku cadaynayay inuu ilaahay wax arkayo. حديث أبي موسى الأشعري ورينيه وحوليه كنا مع النبي صلى الله سافرنا مع النبي قال لسافرنا صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه حتى مركان قاذيك فولينه إذا علونا كبرنا مركان ميل فولينا إلهي باوينين جرنا ورنجرنا الله أكبر أنه قيلينينا. مركز النبي وحيرو بلدلو أكاذية asxaabtayda u kaadiya oo idinka ma baryaysaan alle markaad maqalkiisu adag yahay, ama alle aan waxba maqlaynin ama maqan ma baryaysaan, laakiin waxaad baryaysaan alla xaadira oo jooga oo wax maqlaya oo wax arkaya ayaad baryaysaane. haddaba dadow ilaahay subxaanahu watacaala uu idin arkayaa. haddaad qaylaysaan iyo haddaad markaa hoos u ducaysataan baa ilaahay uu maqlayaa. haddaad ilaahay kor u baridaan ama hoos u baridaan baa ilaahay uu maqlayaa. haddaad ilaahay subxaanahu watacaala tukataan iyo haddaydan tukaninna ilaahay wuu arkayaa. haddaad ilaahay u cibaadaysataan oo cibaadooyinkiisa qaar ka mida aad qabataan, haddii kaleba ilaahay wuu arkayaa. haddaba dadow idinka ma baryaysaan alla markaa maqan ama wax maqlaynine, laakiin waxaad baryaysaan alle xaadira oo jooga wax maqlaya waxna markaa arkaya ayaad baryaysaan buu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam yidhi. bal u fiirsada nebiga siduu asxaabtiisa u tarbiyeynayo. haddaba adigana ilaahay haddaad barido iyo haddaadan baryinba ilaahay wuu arkayaa. qofka barye ilaahay u baahan iyo midka alle u baahan haddana aan baryayninna ilaahay wuu arkayaa. haddaba ilaahay barya oo ilaahay waa idin maqlayaa. hoos iyo korba ilaahay u barya
ama kor iyo hoosba ilaahay u barya ilaahay uu idin maqlaya. nabigana sala allahu calayhi wasalam allaale markuu u yimid malakul jibriil isla markaana uu weydiiyey waxa samafalka la yidhahdo ama ixsaanka, ayaa wuxuu ku yidhi nabiga ama uu ku jawaabay sala allahu calayhi wasalam an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak. waa inaad ilaahay u caabudo sidii adigoo arkaaya oo kale. haddaadan adiga ilaahay arkaynin isagaa ku arkaaya. haddaba ogow ilaahay inuu ku arkaayo. haddaadan adiga arkaynin ishaadu daciif tahay, waayo ishaada isha ilaahay baa ka saraysa. ilaahay baa ku arkaya oo araggaagana koobay. haddaba ilaahay subxaanahu watacaala caabud oo ilaahay ooga baqo sidii adigoo arkaaya oo kale. haddaadan adiga arkaynin isagaa ku arkaaya. micnaheedu maxay tahay? ilaahay subxaanahu watacaala wax allaala waxaad eegaysaa ilaahay ku raaligeli. talow ogowna inuu ilaahay arkayo. wax allaala waxaad samaynaysana ogow inuu ilaahay kugu muraaqabaynayo, ilaahay kula socdo. haddaba ilaahay hadduu kula socdo waxaa lagaa doonaya inaad ilaahay subxaanahu watacaala iska eegtood iska ilaalisood araggaaga ilaahay ku raaligeliso. wax allaala waxaad eegaysa inaad ilaahay ku raaligeliso. baaraka allahu fiikum. magaca albasiir waa micnihiisa haddaan soo ururiyo waa midka aragtidiisu ay koobtay aragtida makhluuqaadka oo dhan. haddaba ilaahay shay ma jiro aan samayno ama aan samaynay ama aan ilownay. shay aan samaynay isla markaana aan ilownay ilaa ilaahay wuu arkaya, ilaahay wuu og yahay. kullun fi kitaabi mubiin. wax kastaba kitaab wax qoraalkiisu cad yahay, aan shaki iyo madmadow midna lahayn buu ku qoran yahay. haddaba isjir, ilaahay wuu kula socdaa. ereygaa markaad albasiir odoranayso ama aad ilaahay ku baryayso ogow inuu ilaahay kula socdo. ilaahayna ku raaligeli. baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra. sheer gareeya, subscribe gareeya channelka, walaaladiina la wadaaga. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatuhu.